oo arkay inuu fiiriyo kadibna si kale u fiiriyo laakiin adiga haddaad soo qortay MRI brain left hand pain or something like that markii cudur baa laga arkay lama yaqaan like haddaad tustid in most likely in factor or you are suspecting mass or you are suspecting anything else qofkii dhakhtarkii radiologist-ka ahaa jidkii saxa ayuu ugu caawina marka always we are as good as the clinician isbitaalkaygana saasaan uga shaqeeya cliniciankayga markuu su-aal aan loo baahnayn weydiiyo radiology reportigaygana mid fiican ma noqo si kastaanaan u arkaa waa fiican marka waa muhiim inaan imagine appropriateness dhaqaale ahaan beeshinkay ka caawin adigay ku caawin beeshinka wareegiisu yarayna daawadiisna oo fiicnaana marka warkiyo kooban waxaan halkan kusoo dhaweynaa noogu bilaabi doono Dr. Jama kadib waxaa ku tegi doona Dr. Sahal waxaan sugaynaa Dr. Ahmed Rational asagana jidka kusoo jira waxaan jeclaan lahaa su-aalaha markada waxa ugu muhiimsan oo ilaalinayo waxay investigation sanadkii justifiable ma yahay maadaama radiation exposure la isticmaalayo inaan mar walba oo badweyn aad samaysid benefitska ka helaysid radiation qofka ku dhacayo isleeyihiin marka benefitska ama diagnosis ka badan yahay waxa radiation ku dhacayo markaas imagekaas waa justifiable kuma dheeraanayo ilmaha yarka ah educationistka waxyaabaha general waa kala mid yihiin dabcan brain sheet iyo head trauma mar walba iyada initial imaging modality ah laakiin ilmaha waxay kaga duwan yihiin child abuse hadduu dhaco calvaria lesionistka sida calamitosis oo kale ilmaha ayaa u fiican brain sheet ayaa u fiican acute neurological deficient shock assessment haddii la rabo in la sameeyo waxyaabahaas marka in general brain sheet ilmaha yarka wuxuu anfacaya marka aad ka shaqeysan tahay scan pathology ama aad ka shaqeysan tahay head of acute ama sudden onset neurological defect head trauma waxyaabahaas markay jiraan CT-ga dabcan doctor soo hore uga hadlay limitation uu leeyahay oo ugu muhiimsan tahay radiation exposure leeyahay marka qaarkood uu leeyahay contrast in la isticmaalo laakiin soft tissue detailska brainka CT clip markaa siinayo oo macnaha detail kama siinayo waxyaabaha ku dhaca ilmaha yarka waxaa ka mid ah skin injury ama diffuse axonal injury CT will not show you MRI ilmaha yarka marka la joogo idea neuroimaging special marka la joogo waa ideal ma isticmaalayso radiation exposure ma isticmaalayo laakiin mar walba waxaad dhigaysaa MRI meel walba available kama aha qarashka waa ka badan yahay waxaan laga yaabaa in sedation u baahanaato just waxaa rabaa imageka waxaa usoo bandhigay inaan so how far the MRI can show you the detailed structure of anatomy all marka neuroimaging markii laga hadlo laga reebo acute scenarios markii laga reebo MRI ayaa ideal for example marka laga shaqeeyo congenital brain malformationska hypoxic ischemic encephalopathy marka laga shaqeeyo structural abnormality brain tumor waxaasoo dhan marka laga shaqeeyo MRI ayaa ideal macnaha cunuga markuu seenahay acute ayuu ku jiray waxyaabaha neuroimaging oo MRI way ka anfacayso waxaa kamid ah congenital spinal abnormalities marka dadku wada maxaa ku dhacay marka dadku waxaan rabay dad clinical scenarios oo maaragtay muujinayo marka qofku sanku ku yimaado maxay tahay inaad dooratid qof child traumatic accident vomiting head ka sheeganayo what would be your first clinical modality what do you think CT okay marka CT waa tusi karaa qofka hadduu jiro hadduu jiro ama trauma haddii jirto waxaasoo dhan CT ayaa ku tusi karaa another time oo ku yimaado headache ka sheeganayo
vomiting ka sheeganay sinus of Tyson cranial pressure ka sheeganay waxaa ka shakisay space occupation ka shakisay. What do you think is the best imaging modality? MRI. MRI marka waxa awood u leedahay inay ku tusiso tumorkii oo brain tumor jiro. Sidoo kale MRI wuxuu leeyahay wuxuu kaga duwan yahay CT wuxuu leeyahay sequence. CT marka la saaro hal mar ayaa la saaraa. MRI la sequence uu leeyahay. Saogtiin brain tumorska badanaa waxa laga yaabaa in histology laga qaadi karo. Waxa nooca ay tahay characterization of lesion waxa ugu fiican lagu ogaan karaa waa MRI wuxuu leeyahay sequence badanaa brain tumorka snapshot markii la fiirinayo waxaa la fiiriyo wax ka mid ah cystic malaria maaha fatty lesion malaria maaha interaction maaha interaction all these features markii isku daro ayaa go'aan waxa lagu gaaraa which kind of brain tumor we are dealing with. waxaasoo dhan waxaa kaa caawinaya MRI la sameeyo oo brain MRI la sameeyo. Marka unug yarkaa oo brain tumorka markaa u shakisan tahay oo MRI u soo dirtid laba arrin waa caawiso. Kow unug radiation waa ka yaraysay. Labo waxaa macnaha lesionkii ama tumorka ka shakisneed si fiican ayaa u ogaaday. Another scenario, okay, markii laga hadlayo neuroimaging ama pediatric markii laga hadlayo CT MRI kaliya. Yes, there is another role for other imaging modalities. For example, unug yar oo pediatric oo ICU ku jira Belgium for jalala yashay. What do you think? Jacnaan lahayd inaa u dirtid. Cranial ultrasound. Cranial ultrasound wuxuu ka caawinayaa germinal matrix hemorrhage wax loo yaqaan. oo markii intracranial hemorrhage ku dhaca. So it can show you hemorrhage intuu leeyahay, extent intuu leeyahay, grading ay u samayn karaan. Laakiin asagana wuxuu laba arrin limitation ugu weyn oo leeyahay waxay tahay unuga waa inay fontanelada ay furan tahay. Haddii unuga fontanelada ay xiran tahay, you cannot do cranial ultrasound. So ilmaha yarka markaan joogno, there is a great role oo leeyahay ultrasoundka, especially cranial ultrasound. ilmaha heersalka faransigooda weeyahay hydrocephalus haddii aragtina ogaatid vascular malformation sida Galen malformation, some other congenital anomalies, cranial ultrasound can help you. Cranial ultrasound laba arrin waa ka caawinaya. Kow horta radiation ma isticmaalayo. Labo expensive ama qofka lacagta ka baxaya waa yahay. Okay, marar badan marka waxaa aragnaa in the clinical practice dhakhtar CT soo dirsanayo unug yar oo laga yaabo hal sano uu jiro asagoo ujeedkiisa ay tahay hydrocephalus inuu ogaado. Marka waxaan rabnaa inaan imagino there is role for cranial ultrasound. Haddii su-aashaada keliya ay tahay inaad ogaatid hydrocephalus. Cranial ultrasound keliya markuu ogaanayo hydrocephalus inuu jiro, it can also waa kaa caawinaya haddii la xiriirto for example ventriculitis. Sawiradan aan hortiina yaala kan geeska jira bidix waxaa ka muuqda ventricular ama hydrocephalus. Marka haddaa u fiirsatid content-iga ku jira waa debris ku dhex jira. Marka picture-ka ma raba inaad ugu dheeraado, laakiin muhiimaddu waxay tahay cranial ultrasound unuga markuu fontanelada ay furan tahay, it can help you inaan hydrocephalus ogaado. Haddii complication ventriculitis uu ku tusi karaa. While CT isla qofkan haddii la saaro ma ku tusi karo ventriculitis wax inay la xiriirto. Waxaan xasuustaa case on real practice ku arkay oo qof cranial CT loo soo diray. CT markaa fiirisid waxaa ka muuqda hydrocephalus. Laakiin unuga markaa saartid ultrasound waxaa arkaysaa hydrocephalus plus content-iga ku dhex jira maaragtay ventricular system-ka. GIT markii loo yimaado dabcan ultrasound ilmaha yarka markii la hadlaayo wuxuu leeyahay role fiican ayuu leeyahay. waxyaabaha ugu horeeya unuga markuu dhasho oo mata ku bilaabo waxyaabaha ugu horeeya badanaa ka shakisan waxaa ka mid ah hypertrophic ideal imaging modality oo loo diro waa ultrasound. waxaan ka xumaa hadda kore arkay my practice unug yar oo loo soo diray CT oo just rule out hypertrophic balancing. qofkaas macnaha CT ma ku arkaysid waa soo qod qofkaasna si loo ogaado mar labaad uu u baahan yahay CT ultrasound lagu celiyo. waxyaabaha aadka loo ogaado waxaa ka mid ah ultrasoundka ilmaha yarka appendicitis. waxyaabaha loo ogaado waxaa ka mid ah interception oo
oo weliba maaragtay kaga horeeya CT herniooyinka kale maayarka markay leeyihiin ama inguinal hernia ama scrotal hernia wado ultrasound wuxuu leeyahay rol fiican ayuu leeyahay ultrasound waxaa kaloo weliba kaa caawinaya in ischemia la socoto iyo kale ayuu kaa caawinaya scrotal pathologies waa la mid and some renal just a picture and how far MRI ultrasound can show maayarka markii lagu sheegsan yahay hypertrophic bowel stenosis interception-ka ultrasound wuxuu leeyahay very good role studies waxay muujinayaan ultrasound-ka 98 ilaa 100% sensitive and up to 90% specific in lagu ogaado inuu gaarsiisan yahay ultrasound when it comes to reception oo calaamadahan iyo waxaan muujinayo marka ilmaha yarka marka ka shaqeysan tahay reception you can send for ultrasound lacagta iyada ka yar radiation on ka badbaadis طبعا بلين abdominal x-ray waxyaabo badan lagu ogaadaa oo foreign body hadii jiro aspiration hernia oo kalooyinka qaarkood waxa kale oo dabcan uu ka caawinaya assessment of tubes and lines appendicitis marka badan clinical dilemma waa qofkan cunugan waxa u dirtaa CT waxa u dirtaa ultrasound although in general studies way kala duwan yihiin ultrasound-ka waxa lagu tixgeliyaa inuu yahay initial imaging modality wuxuuna kaa caawinayaa inuu jiro ama inuusan jirin ilmaha yarka ultrasound marka mar walba wuxuu leeyahay limitation oo operator dependent waaye sidoo kale hadduu qofka obese yahay uma fiicna abdominal CT ilmaha yarka dabcan adult ay kala yihiin abdominal masseska trauma haddii jirto habaas adult ay kala mid yihiin oo waa loo diri karaa abdominal MRI ilmaha yarka waa jirtaa in loo diro especially markay timaado liver pathologies markii la rabo characterization lagu sameeyo abdominal MRI is considered as to abdominal CT inflammatory bowel disease ka waa isticmaali karaa musculoskeletal system dabcan waxaan ognahay x-ray was the primary imaging modality skeletal system markii loo yimaado all fractures waxa koowaad bisada waa x-ray still waa waxa lagu tixgeliyaa inay tahay the first initial imaging modality laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano especially markii hor timaado ultrasound has role waxyaabaha ugu horeeya ilmaha lagu arko waxaa ka mid ah teamka orthopedic laga yaabo inay arkaan developmental dysplasia of hip waxaa lagu ogaan karaa ultrasound especially in the first 6 months of life markuu ilmaha rotator cuff tear ama rotator shoulder trauma qofka haddii ku dhacdo ultrasound is almost comparable to MRI when it comes to rotator cuff tears. For example, cunug yar oo kugu yimaaday 2 bilood jira ka sheeganayo dislocated hip labada lug ay kala yar yihiin what will be your first imaging modality? X-ray. So X-ray هذا هو في المعيار ossification center إلا نحبره ذي ثاني مركو هذه كسر بحره for first 3 months of life you will not be able to see marked ossification center can active especially when it comes to X-ray. That's why we need marking the job in my area or say high congenital hip dysplasia ultrasound can answer. Unuga hadduu gaaro 6 bilood hadduu gaaro markaas waa marka ossification centerkii soo baxayo oo X-ray loo diri karo. Okay, ma rabo inaan detail galo maxaa ku arkaysa laakiin just my message ilmaha yarka 6 bilood ka yar congenital hip dysplasia ka shaqeysan tahay ultrasound is the initial imaging modality. Rotator cuff tears-ka طبعا waxyaabaha ugu badan oo culays laga yaabo inay ka taagan tahay oo clinicians-ka hadda laga yaabo xogaa in awareness-kaas uu soo koray badanaa qofka markuu trauma ku dhaco waxa uu leeyahay test fracture qofkii waxa laga yaabo inuu jirin X-ray loo diro waxa xiga dabcan waa in laga fikiraa soft tissue injury ma jira kafiska ama tendoniska tiir ku dhacay studies-ku marka waxay muujiyeen when it comes to shoulder rotator tendoniska is almost comparable to MRI
when it comes to MRI in terms of sensitivity and specificity. الماء يركب مركب rotator cuff وشك كثير عديد لا تاني يسقط waxa u diri kartaa ultrasound u diri kartaa qarash ahaan oo u yaryahay dabcan sawirkani ma laga yaabaa in marka qaarkood anesthesia u baahan anesthesia MRI على مسؤول كم كريم and it can help you in a final diagnosis. Just طبعا صورة على X-ray مرة إذا imaging modality X-ray واحد قصة حاجة هو CT أنا اللي كلام دي طبعا in general عروض مركز صور كوبو imaging modality أو تشنيسي حيكون حرنت والدور فاكتور إنه كيف كرتيب وايد ونقول radiation exposure كأسينيسي justify waxaan ka jawaabi karaa waxa kale oo xarabta clinical position ka raadinaysa subxaana boontigaas oo boontiga qalbiga hore uga hadlay marar badan laga yaabaa sawirka aan aragno ama request-ga aan aragno qofka dhakhtarka waxa uu lahaa waxa muhiim ah inaan website inaan ognahay waxa raadinaysa sidoo kale inaad ka fikirtid waxaan image-ka u dirsanaysid can it detect what you are looking for ma ka jawaabi karaa marka taa waxa ka caawin kara dabcan waxna waa waxbarashada waa quraanta waa raadin kartaa waxa kaloo ka caawin kara dhakhaatiirta radiologistayaasha I think in most of time is available yihiin soo wici kartid kala tagin kartid waxaanan clinical suspicion kii waxaan waaye maxaan soo dirsadaa dabcan costiga waa muhiim another factor oo laga xisaabtamay tahay for example kartid appendicitis hada ultrasound ku ogaan kartid oo lacagtiisu yar tahay radiation aanu jirin you don't need to go to do CT dabcan waxyaabaha mar walba ayadana in laga fikir u baahan tahay CT aad dirsataa MRI waxay ku sii xadaan doontaa organka u baahan tahay just waxaan kusoo gabagabeynayaa example aan rabay inaan ku muujino inaan sawir walba uu ka jawaabayo su'aashaada saan ognahay epilepsy ama ilmaha yarka qalka qaba waxa ugu horeeya ama one of the common causes of epilepsy is temporal sclerosis waxa loo yaqaan temporal sclerosis marka labada sawir ay muujiyeen midkan waa MRI kana waa CT MRI waxa arki kartaa waxa loo yaqaano hippocampal atrophy waxa kale arki kartaa loo yaqaan hybrid ana daw fiirsan meesha ma ka cadaa while CT although it's the same patient it will not show you those classic findings marka qof waxa soo dirsatay marar badan waa aragnaa qof waxa laga yaabaa inuu soo dirsatay CT inuu geer inuu qalal qabo hadaan ku dhaxno normal brain CT doesn't mean qofkaan waa fiican yahay is your role in qofkaan dib u baartid oo maxaa ku xiga raadsi marka question kan badanaa laga raadinaysa kasto waxa kamid ah normal radiological investigation macnaheedu ma ahan meeshaan waa fiican tahay marar badan waxa laga yaabaa qofkii qalal haya oo ku waxa saaraysa brain CT reportiga waxa ku qoran normal marka waxa laga yaabaa dhakhtarkii dacwaan u soo qofku wada jiran yahay marka normal kana ku leeyahay macnaheedu ma aha maskaxdu waa normal macnaheedu waxay tahay scan kan aan fiiriya normal so adiga as a physician waxa mas'uuliyad ka saaran maxaa xiga is it enough waxaana soo dirsatay mise wax kale ay tahay inaad ka fikirtid as a physician waxa mas'uuliyadda saaran tahay inaad ka fikirtid marka hore waxaana soo dirsanaysid maxaa habboon waxa kale oo ayadana muhiim ah badana radiology suu badan yahay waa anatomic evaluation markii laga reebo some investigations like functional MRI Doppler markii laga reebo inta u badan oo radiology uu sameynayo waa anatomic evaluation it's not functional evaluation waxa dhacda mararka qaarkood inaa clinical practice qabsata qof waxa laga yaabaa inuu keeno waa psychotic ah MRI ama CT loo diray normal waxa laga yaabaa in lagu qabsado maxaa normal u leedahay qofka jiran yahay marka dabcan psychological issues sababtiin waa wax la xiriira cognitive function ka wax functional evaluation history u baahan waa
annaga waxaan kuu sheegi karnaa meeshaan structural pathology ma jira, tumor ma jira, infection ma jira, wax isbeddel meeshaan ku dhacay qaabkii u samaysneed. Functional evaluation maaha. Another example waxaa ka mid ah qof baa laga yaabaa kooma ku yimaado brain CT ama MRI loo sameeyo. You may see in aragtid result report inay tahay, laakiin kooma qofku waxyaaba u geli maaha kaliya anatomic issue. Waxaa dhici kara inuu qofkan qabo metabolic issue, waxaa laga yaabaa diabetic coma inuu ku jiro, waxaa laga yaabaa inuu other electrolytes inay wax si ka yihiin. markaan leenahay normal waa anatomic evaluation aan fiirina. waxaan ma jira haddii qofkan kooma u soo dirsatay wax kooma keeni kara oo maskaxda ku jira. haddaysan jirin markaas dabcan you need to do some other metabolic issues. هذا ما أستطيع. جرين كدينا دكتور أحمد وايو دكتور سلو سنجا حسوسينا ديارنا دكتور أحمد وكما تركي تخصص كيس لكن ما دام وصل نقضي أو mainly في التخصص هو radiologist لكن main function كيسة in the future و interventional radiology وحنا قرنا به interventional radiology كلي هو إيه حتى أدون كويس بدلي واجي ورمرك interventional radiology لبلاد جري تغطية السيرجن ك pediatric or adult ما يسربين in interventional at that time. ما أنت أدون كهرو جاري insurgents وصل تابن كيس كا هذه الشيء كريجتو أو إسلية intervention كاغفول صوته حكيتي وحيرادي مشدي وحيرادي complication كي وحيرادي the burden on the hospital economical wise on the patient in the hospital intervention generally unless it's very complicated one day be work and you leave. Marka I am really very proud in Manta while another generally was general radiologist لكن أحمد إنه Manta no يماله أصو interventional radiologist شاطئ يسوته يدغاتير تكرر دكتور أصلا كتب دكتور وأنو جيدو إن أينا صوت وصعدان in interventional radiology وجرو مركو حنا يدغاتير تسيرجنز كنت جوجو internal medicine كنت جوجو cases بدن وحنا كيو diffuse abscess intra-abdominal abscess أنا شخصي أنا دغاتير تكوي replace هتابنينا أقالنينا interventional ودرا وinterventional تمركات ودرتي أو abscess drainage في عنكو سود patient كينو overall fine نقطة after 6 weeks 8 weeks وهكذا يكتب elective operation patient survival ratio to a banana patient quality life to an excellent economical wise you help marka Dr. Ahmed Sodowaw our interventional radiologist waxaan rajeynaa inuu wujud cusub noogu yeelo waxay interventional radiology ka tahay Dr. Ahmed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حسن ومحسن تاي مركور حروينا وماد اليو ورك القادر الصومالية وبرنامج كان مهندس قاسم دكتور لول ومعلم الديدا دكتور إبراهيم بولد وسينيور كذا سيدو كله ورك القادر تا صومال راديو سوسايتي إن شاء الله نقوم نقلا ودكتور حسن وسينيور كنا نقل جوي دكتور جمال حسلي هاي قفكا نيو graduated radiologist هاي قفكا هالكا جوي سينيور كيا قفكا وقا علمي section كراديولوجيا كمان هاي دكتور حسن ويعاوي وما صدق وحسلي هاي وحياو الله بنا مرة إن لسماه إن radiology أو medical imaging كقاطير تكنيشيان كأي كوسف كايستا مدام وحوصف وتكنولوجيا الحريرة أي تاي ودبكيدا له مدام radiation exposure كقرر كوينايا فرقنا كل إيراد تبغى أسكت جاريه radiology كا سيدا وحاول مركز وحيدها it's broader medicine ووح from here to
all system Jordan, image code, anatomy, pathology, variational structures sometimes ay tahay labada barto soo darteed hadda waxaa la kala qaaday diagnostic iyo intervention oo hadda some basic concepts oo intervention ku saabsan aan meeshan ku hadla insha Allah intervention ka markii hore ma jiri jirin jadwal radiology-ga dalka ku yiraahdo oo horumarka aan gaarayno dal ahaan ay kamid tahay ayadana in imaging-ka uu horumar sameeyo dhaqaatiir badan oo radiologist hadda soo baxay oo joogaan marka filmiga intervention-ka insha Allah waan rajaynayaa in ay anfaxno ila dowladda so in general intervention radiology waxaa lahaa minimal invasive procedure يعني أيضاً الاستعمال هايو وحنا بكام كده بكونين أو virus guidance لأن هذا السنة image كهذا diagnosis أنكو قارنه أو ultrasound كا CT fluoroscopy ذلك نوعي إنه رؤية لكن fluoroscopy حلا وضع هذا سمين procedure كي إنا same time أرك simultaneously marka waa wax hadda Mareykanka iyo meelo badan laba loo kala qaaday qofka in intervention radiology shan uu sameeyo takhasus shan uu sameeyo diagnostic marka laakiin insha Allah aniga Soomaaliha waxaan dhaqaatiirta basic horta maxaa lahaa IR intervention radiology maxaa lahaa muxuu qabtaa dhaqaatiir soo caawiya radiologist-yaasha waxay markasta caawiyaan clinician-ka iyo surgeon-ka intervention radiology marka wuxuu kamid yahay waxyaabaha problem solving tools-ka waayo bukaana qashay complication uu develop gareeyay abscess oo kale then haddii marka la qashay bukaanka laga yaabo inuu ICU gal ama uu dhinto laakiin simple haddii aad isticmaashid simple ultrasound drainage abdominka waxaa laga yaabaa maalmo kadib bukaankii abscess inuu banaanka soo baxo with antibiotic oo bukaankii discharge absorption marka dambe waa specialty taasoo minimal invasive sameynaysa ayadoo la adeegsanayo ultrasound CT fluoroscopy iyo restartigan waxa waa intervention macnaheedu waxa waa sida qaliin oo kale normal diagnostic bukaanada lama leeyahay direct contact oo bukaanka image-kiisa aragna CT report aan qorna laakiin intervention-ka surgeon aad tahay saalada galaysa adigoo sterile dalkii xiranaaya bukaanka aad ku tagta leedahay bukaanka markuu surface-ka tagay kadib aad follow gareynaysid adiga waa qaliin oo kale yani laakiin qaliin oo non invasive ah laba loo kala qaada vascular and non-vascular vascular is another level hadda insha Allah maybe for the coming 10 years in gaaro waa ayadoo angio adeegsanaya angiography waa mashiinka digital structures angiography sameeyo oo isbitaalada qaar hadda sida digfeer hadda u keenay horan waxa uu haystay radsiga daan qadre laakiin non-vascular-ka waa waxyaabo anaga ma sameyn karno non-vascular-ka ma sameyn karno waxa uu badan hadda biopsy-yaasha kamid ah thyroid biopsy oo kale waayo criteria jirto wax kasta bukaan ka soo thyroid nodal leh in biopsy loo sameeyo is better haddii aysan system ahayn si early intervention iyo early treatment loo sameeyo waxaa kamid ah oo kale all biopsy thyroid-ka liver biopsy oo breast-ga ah mammogram ma taalo laakiin hadda waa la keenay meelaha qaar aan maqlaay so oo liver lesion leh is better sorry breast lesion leh oo malignant characterization kale sonography kale waxaa fiican in loo sameeyo biopsy is not invasive waxa waa low cost time ay qaadanaysa ultrasound ama image guided waayo bukaankii waxaa laga yaabaa haddii blind aw samaysid in lesion halkaan ku yaalo lesionka aad penetration ku samaysid oo malignant penetration aad samaysid laga yaabo in revision si sameeyo laakiin markii image guided ay tahay simple waxa waaye with target lesion adaa qaadaysa in addition liver ko kale madam Soomaaliya hepatitis B carrier aad u badan yahay Turkiga waxay sameynayeen bukaan kasta oo hepatitis B carrier ah waxa la sameynayay non parenchymal biopsy yani bukaanka in la ogaado liver parenchymas fibrosis ma ku socdo sidee waaye yearly marka qaar waxay sameeyaan waxaa elastography oo liver parenchymaha structural distortion ma ku socdo masuu fiican yahay marka in haddii ay suuragal tahay bukaanada hepatitis B qabo dhan ay suuragal tahay in loo sameeyo liver biopsy
si markaasi ilatirinta loogu sameeyo iyo target sidoo kale bukaan ay soo karsanam qabo ama whatever any focal revelation oo dhan target biopsy loo sameyn kara diagnosis la gaara dan bukaankii soo diagnosis with hand oo wato treatment way fududaanaysaa. This newly hadda la keenay waa angiography. It's not laakiin in dalka uu yeelo angiography oo bukaanka acute MI-ga uu dhimo lahaa ama whatever peripheral ischemia bukaanada dhaweyn qabo il daaweyn karaayo ayay kirtaan. Saarkiisaan percutaneous biopsy-ga waxaa la adeegsadaa ultrasound, CT, fluoroscopy. Hadda iskilo CT iyo fluoroscopy waxaa iskilin annaga Soomaaliya isbitaal kasta waxaa yeela ultrasound. So wixii markasta available in ka faa'iideysan waayo ultrasound-ka ayaa very important ah dadka inay radiology doodii maaha waqti xaddiga dhaqaatiirta imaging baa lagu leeyahay laakiin project training isbitaalada public ah oo bixiya service-ka ayaa dhaqaatiirta project training bilow loo dadjin karaa si ururaan inta waxay sameeyaan inkastoo riskay oo badiya waayo we are not surgeon but if in case isolated artery injury then bukaanka maqal kartid laakiin surgeon ka in case ay kala sameeyaan waxay loo baahan yihiin ay diyaar u yihiin surgeon bukaanku way qali karaan so anaga waxa u baahnaa markasta inaan the minimum invasive procedure kas in zero problem so waxaan sameeyay waxa waaye loo kale laakiin haddii lesionka uu yahay peripheral yani sublunar area iyo haddii uu yahay central sublunar hadduu yahay usually waxaa sameynaa CT guided laakiin haddii uu yahay paratracheal oo central zone kale waxaa sameeya qolada pulmonology iyo waa scopic oo scopic loo sameeyo saxda laanna areas haddii aan soo gaaro vascular surgery waxay maahan just one lesion ka dhawaa sameyn karnaa liver oo la sameeya atrial gland lesion ku dhacayo mararka qaar diagnosis waxaa loo gaari karaa non intervention adenoma iyo waxa soo dhan pancreas kidneys if adenoma CTB-ga lymphoma all this liver biopsy hadda saan sheegayo si aragtaanba is very simple procedure oo bukaanka laga soo galayo percutaneously then waqti ma qaadanayso usually waxaa muhiim ah sida surgeonka oo kale bukaanka tarbali lagu sameeyo ka hor in pre-op analysis ka sameeyo ani bukaanka INRTC 1.5 ka yar tahay baladeedka konta ku badan tahay hemogramkiis fiican yahay iyo post-op 6 saac camal in bukaanka joogo surface-ka dhaqdhaqaaq uu sameeyo yani post-op bleeding inaan ka hortago then it's daycare procedure waa guriga iska kara so usually bukaanadan oo loo sameeyo liver biopsy oo bukaan elective ah oo qabaan bukaankaas oo liver function disease ka si yahay is better in loo sameeyo liver biopsy sidoo kale waxaa la mid ah kidneyga okay this like kidneyga la mid ah bukaanada creatinine kacsan tahay laakiin aan la ogeyn recent si waxay gadaal ka maraysaa kidneyga tirkoon la yaqaano so this procedure kaas waxay fududeynaysaa markasta in complication oo isticmaalo looking sa aragtaanbo look is very direct on the target lesion lesion is that then percutaneous waxaan kasoo galnay just right parasternal area and then straight waxaan dhex joognay this needle cane waa this CT guided biopsy ultrasound guided waa isticmaal karnaa laakiin haddii lesion uu yahay just sublunar iyo just anterior thoracic wall haddii bukaanka waxaa tahay is very important
ultrasound obese enemy يعني fat كمركزته is not good for ultrasound. sidoo kale waxaa muhiim ah Soomaaliya operation market ma ay sterility uma fiicna dab complication oo ay kamid tahay abska markasta badan indifer I think bukaanada surface ka jiifa lix shan oo kulligood sameeyna intervention technology post op complicationada absay iyo bilowm iyo wax develop kareen so all these are sameey kara blura langiga circulation all these waxaa la sameeyo bacterial drainage la sameeyna so bukaanka gurigiisa aada isbitaalka inuu joogo muhiim ah gurigiisa daawo ku qaadanaya antibiotica dan waa la soconaa case bis waa oriented gareyna inuu isbahashan dhaqaajin bleed iyo xasilo horto this minimal invasive procedure bukaanka wuxuu ahaa bukaan loo sameeyay prostatectomy then developed a subcapsular biloma then parakimaha iyo bile isku furmeen every procedure or surgery sameeyaan complication is inevitable so wax oo caadi ah laakiin post complication solution ka dhow ficil qaata sax ah aan percutaneously sameeynay bile drainage waxaan sameeyay scope jihazkan arkaysan waxaan lahaa fluoroscopy wuxuu ku tusinaa si aad qalad u sameeyeen at the same time to your operation meesha ay joogto needka okay laakiin waxaa ku ballantar la ah u socda ultrasound inay hesho si ayadan marka hore galayso ku caawiyo thank you for rotation I think please back waxa ila tahay orientation iska ahayd hadda wax isbarayna laakiin in uuraan waxyaabaha jiro la sameey karo la iska warqabo qaatiirta clinician iyo radiology iyo oo waxaan nahay dad oo integrated ah marka wixii su'aalaha oo dheeri insha Allah oo jooga su'aalaha doctor Dr. Ahmed hadda waa fresh Turkey looga yimid horta radiology waagii hore waxay ahayd wax iska yar hadda waxay noqotay very complicated more advanced hadda meelaha laga joogo ayaan tusaale siinaa meeshaan ayaan ka shaqeey normally Soomaaliya qof walba oo nina oo gaaro daada 65 enlargement of the prostate waa or is not about discussion and almost majority of them PCA prostate enzyme adapted is slightly elevated or more elevated markaas dadku waxay ka welwelayaan cancer marka maxaa loo baahnaa biopsy loo baahnaa biopsy-gu waxay u aadaan India waxay u aadaan Kenya waxay u aadaan Turkey Dr. Ahmed Dr. Sahar Dr. Sahamdi transrectal biopsy bay suubin karaan transrectal biopsy bay suubin karaan pathology-ga loo diraa result-ga la siinaa patient-kii waa cadda result marka waxay ku tusaysaa inaan qabno dad qualified oo suubin kara laakiin inaan bilaawno inaan aaminno annagaan is aaminno inaan Soomaali nahay it doesn't mean that of ajnabi inuu naga fiican yahay ajnabi oo tagayna waa ka baranaynaa waa soo noqonaynaa cilmigaan isticmaalayna marka waxa weyn pointiga internet mideeda kale hadda waxa soo baxday waxa la CT card angiography coronary angiography meesha anu anjo aad bay hoos u dhacday markaan bilaabay inaan CT card ga angiography anana meesha usu also echo maalmo ugu horreysay markaan ilaanay cardiac MRI rabnaa inaan soo is a natural the cardiologist waxay ka cabsadeen in MRI la wareegay laakiin hadda maxay barteen in MRI uusan la wareegin oo supportive yani adduunka hadda waa horumar Soomaali oo mutaalimiina waa noo joogaan siiba qaybta radiology Dr. Ahmed interventional Dr. Jama Dr. Sahad Dr. Hamzi Dr. Amarajo Dr. Halim yani waa badan yihiin Dr. kaasoo fadhiya dhaqaatiir badan oo magacyadooda aan sheegi karin waa ka soo jeeda marka radiology-ga waxa fiican inaan anagu aan isticmaalno Soomaali baan nahay dadkeena u baahan aan iscaawinno annagana quality ahaan ay ugu taageerno process ahaan ay ugu taageerno economic innovation-ka burden-ka aan ka yareyno marka warka meeshaan kusoo kooba haddana discussion-kii ayaan fura Dr. Ahmed Dr. Jama Dr. Sahal halkaan soo fadhiista waa kawaankii hilibka marka waxaan ka codsanaa idinka wax xishooda aysan jirin
wax su'aal qalad la yiraahdo ma jirto su'aal shan maxay u kululeed ma jirto waa su'aal please su'aasha bilaaba hana u jexjexinina ku soo dhawaada su'aasha ugu horeyso Dr. Salul adiga kaaga bilaabna su'aasha ugu horeysa inaad u bilaabto waayo waxaad maraysa qof walba adiga kaaga تفسير بالله please السلام عليكم سؤال قولي تاجر معها لكن سؤال بدل الأحاديث والقبام وارد كفتنا والوضع الراديولوجيات وحي سمعان comfort zone كودا أنا كأني سنة واحد comfort zone كودا سي حداد كودا وقوي كلام بيحواه ودي شجرة أو شيء complex كذا وحي كسر رعيان clinically correlate marka discussion kala kuma jirin clinically correlate waxaan rabnaa sida anatomical Dr. Sahal uu sheegay functional normal maaha uu dhahay clinically correlate noo sheego order waa international radiology report waa international haddaad UK tagtid haddaad India tagtid haddaad America tagtid is a some sort of legal protection hadday hadal baan ilo ahaa we are as good as you adiga haddaad dhaqtar fiican oo clinician fiican tahay I will become good while you have the high expectation from me laakiin adigii haddii aad tacbaan tahay anigana tacbaan noqon marka we are good as you guys are good marka clinical indication anigana aad ii jeedaan waxaan isku daya inaan ka fogaan laakiin waa gelina sababta keenaysaa waxay tahay klinikadiina la siiyey is a short or sometimes misleading marka haddii aad tirahdid waa normal oo haddii kale actually kelmadda normal Dr. Sahal waxaan ugu daraa anigu shakhsi ahaan normal ma qoro waxaan qoraa either negative study or waxaan qoraa no significant abnormality waayo normal markaa qortid waa runtaa qof jiran baa lagu keenay normal baa tiri dhakhtarkiina ma garanayo inay waxaanu aysaneen physiologic waxaan soo maa ay tahay anatomic structural anatomic adiga ka hadlis marka generally I prefer no significant abnormality detected or negative study clinicalna maxaa waaye idinka baan balooligina kugu soo celinayna waxaa leeyahay niyo aan waxba jeediye hadhowti gool ha iga dhalinin isla wareega howsha بسم الله ترحسه وحرمنا السجرة سؤالها سنوي جوانا كهري ما دام أيضا كلمة جوجا على اللاين هي تهاي أو عصير تهاي هي كذا بيجي سؤال شخص ماشي جام كومنت ساو أنا لو حد كومنت في السؤال توصيل سوشيالي كلينيكال ريليشن كا عارف ليه هاي أنا كان وان كم تريسا جونا للربو 75% diagnostic in no history and physical examination. As a physicians, as clinicians, we don't rely on imaging as a laboratories. Sometimes, perhaps what clinical correlation of bukanka in imaging is required. Like as a physician, of cardiac, the witness a clinician. Diagnostic radiologist, Hassan Sunoshi, and history في عن guidance في عن سينو they will give a good reasons لكن هدي عن سينو إنه وحكي ما كان مرة so قف ما كوجدنا بيصل من decision كينو جارو أما قاتم وأكلينيش كبكان كدابينا قادنا وكان أبوي مارا the decisions أنا أقول هاي وحبا إن image كسوق خدينه وكان epilepsy قبل أنت epilepsy أما decisions 75% وأديبات أصوات كلامي عروض كوكينا لكن هو يقول بحب لهاي وحاول بهنا إسكان على إسحاق عندي أما تقاتيل تكار وحي دراية سي أو misuse عندك cerebral palsy كمان وأدوكت هاي إن وحبا عدو درتوس وحبا كثير فائدة these are long term communications and وحارك يسا more than 4 إلى 5 times loss of imaging MRI CT scan دكتور والبوكو درو وسمينا بحي استعمال أما إنه إسكان كلا صوصا تصنع الحين إذا إن وحى الربني ماشي كبحان مس أبغى بريفيوز كواي حداني ترسل السودان تكشيء جاي بحب بدني إذا exposure كي بس كي الماس
radiation ku keeni lahaa marka waxaan u malaynaa waa gadaalan ka dhihi doonaa laakiin waxyaaba anigan radiologistayaasha aan dhankooda ku tiirinayna jiro daadda commentiga laba su'aal in pregnancy ma garanayo dhaqaatiirtu intaan hadda dhegeysanayay pregnancy waa ka tageen so waxaa u baahannahay how about meel walba waxaa ku qorana aragnaa meeshaan ma loo ogolo isu soo dhawaanin hooyada uurka leh xanuunaa ku dhici karo oo image loogu baahan karo advanced ah iyadoo pregnant head trauma ku dhici karaa ama stroke ku dhici karo wax walba ku dhici karo so waxaa aaminaynaa the traditional in hooyo uur leh aan la saari karin wax image x-ray ama MRI ama aan u baahan horta that's one ilaan kulli wada ogaano the clinicians su'aasha labaad waa maxay tahay aan arkin as a pediatricians waxyaabaha aan rabno oo laga hadlo waxay tahay role of EEG electroencephalogram ma imaging ku kamid yahay waa ka baxsan yahay because intaan akrinayay waxba laguma soo dirin epilepsy marka laga hadlayo musicians laga hadlayo caruurta waxa anaga aan la gareyno maxay tahay EEG magaalada dibka ku qabno waaye we don't have EEG fiican sometimes EEG no wuxuu kaaga wax badan kaaga tara management issues which type of drug isticmaal lahayd marka epilepsy la hadlayo marka role of EEG qaadurta ma wali advanced ma gaarin se waxaa ka dhimano ama sinti transfer thank you دكتور جامع سؤال مهمة كان البراند هذا ما سنتهي سؤال آخر ما مي discussion كان كده نهاية وأنا very sensitive هو يدور كله CT scan ولا صار كرا سيدا إيش أجابه CT scan أما request of image ما كان تسني استوى إنه reason جنا وحكي سحكم يمسك أنت هذا صار كره what is the reason أو تسني قف أول مو بعين CT scan haddii ay jirto reason oo qofkaas u baahan yahay dan markaas waxaan fiirinaynaa riskiga oo maamada ku jirto haddii trauma xabada ku dhacda maamada shilaa jiro nolosha babyga iyo maamada which one is risky more kee muhiimsan in la badbaadiyo haddii the risk is higher compared to the baby oo hooyada nolosheeda halis ku jirto CT even haddii uu cunuga jiro hataa first trimester hadduu ku jiro still waa sameynayna because hooyada more important again su-aasha waxay dib ugu laabanaya what is the main reason haddii qofka anigu just abdominal pain wax emergency aysan ahayn no use of CT scan waxaa sameynayna ultrasound haddii perforation oo jiro haddii uu jiro hematoma then markaas u saari karnaa midda kale hooyada uurka leh tusaale ahaan dad waxaa jira qaar inaysan ogeen xilliga uurka qaadan iyo xilliga kale dhakhtarkiina uusan ogeen caadada markay ugu dambeyso oo 2 bilood kale gabadhaan iska shakisan inay uur qaado dhakhtarkiina su-aashaas ma weydiinna waxay u imaaday in abdominal pain oo jiro inta badan sida aragno ovarian cyst oo kale ama appendicitis oo jiro abdominal pain oo keena qofka haddii uu qof haweeneyda la qabanayo aysan ogeyn in laga yaabo bishii hore aysan caado u imaan pregnant tahay already babygaas wuxuu ku jira first trimester ku jira centerada aad joogo technicianka su-aasha ugu horeyso oo qofka haddii uu jiro la weydiinayo waxaa waaye when was the last time menstrual cycle ugu dambeysay haddii ay dhahdo bishaan imi maanama bishii hore ay ugu dambeysay then as a rule of thumb waa inaan sameynaa pregnancy test hadduu positive soo baxo then waan ka joojinayna hadduu negative soo baxo soo saarayna markasta marka adinkana precaution samaysaan oo su-aasha weydiisaan hadday pregnant tahay had reason oo inay problem ku imaanayso waa u samayn karnaa ugu dambeyn haddii qofka inuu pregnant yahay markuu anaga noo imaanay mar labaad su-aasha weydiin doonaa waan hubin doonaa
rarely in qof oo pregnant ah scan saarno anagona hubsan qof aynu pregnant yahay markaste waxaan ka qaadi doonaa pregnancy test haddii qofka intaan CT scan kala saarin su'aal la weydiiyo jiro especially in females oo kale oo ah in qofkani uu menstrual cycle-ka marka doctor Brian su'aashaada markasta waxay ugu soo laabanay what's the main reason qofkan CT scan lagu diray reason kaasi ma yahay benefit ma yahay haddii benefit ahaan there is no use su'aashaada labaad Dr. Brian waa mahadsantahay EEG waa functional study physiological study ma ka tirsana imaging studies kama tirsana EEG ECG myelography studies all these kama tirsana imaging studies kama tirsana dabcan EEG waa taqaanaa badanaa waxa la fiirinayo waa wax physiology oo qofka waqti dheer lagu xirayo la fiirinayo marka badanaa dabcan waa anatomic study waxa snapshot ah ma qabanaysa just one point waxaan rabaa inaan ku laabto commentary uu ka hadlayay Dr. C oo correlative clinical mid kale oo noo raacdaa correlative histology das kaliya ma macnaha just waxaan rabaa inaan tusaale yar siiyo covid hadda ayaantan aad u badan just CT scan-ka marka la saaro waxaa ugu badan la arkaa ground glass opacity dabcan waa laga yaabaa inaad reportkeena ku aragteen just CT marka la saaro covid-kan dabcan wuxuu leeyahay scores oo high level of suspicion dabcan way ku xiran tahay laakiin waxaa ugu badan la arkaa ground glass opacity laguma arko covid waxaa lagu arkaa infections waxaa lagu arkaa lung fibrosis waxaa lagu arkaa interstitial lung disease annagana requisiga badanaa helno waxa waa just CT scan qofku waxaa laga yaabaa inay imageka aqrinaysid just abdominal CT scan marka waxay u laabanayaan that's why markaan mar walba ugu celeynaa covid ground glass-kan opacity-gana arkay ma wax hadda currently functional ma covid ma waxa waa picture kaliya arkay that's why marka always aan u baahannahay dhakhtarkan dib ugu laabto clinical laabtadu la xiriiriyo maahan kaliya meelaan ku gambanayna oo waxaan wax ku raadinayna waa saddex haddii aydan kaftan aan ku daro mararka qaar markaa qorayno correlate clinically ma ahan in waxaa qorayno oo shak ku jiro waxaa ka cabsanaynaa dhakhtarka bukaankan soo diray in naftigiisa oo reportkan kaliya take it to heart oo sameeyo oo bukaanka asigoonan correlation with the lab profile uusan samayn symptoms soo samayn oo bukaankii reportka ah qorno daawo u bilaabo so correlate clinical markaa qorayno adaa ku cabsanaynaa inaadan mistake samayn Okay, Dr. Kale, aniga hal kelmaan ku daraa EEG meeshaan joogo neurologist kale ECG-na internal medicine iyo cardiologist kale inta oo uurkana oo ku raacsanahay importance hooyo cunug maaha hooyo risk may ku jirtaa cunug is no more gain hooyo importance ah Sorry, انتظار عفوا انتظار انت من ما كتبت صوت Thank you very much. As a physician, comment to the importance part of the clinical history. haddaan u jirin clinical history radiologist ma jiray qalab badan dhacay radiologistaha waxaa sidoo sheegay torka ka dhigi kara good radiologist inuu jiro good clinician pediatrician obstetrician so aday ka bilaabanay tusaale yaroo kooban aan rabaa markaan u soo qaato tusaalaha gabar waxay ii timid 40 maalmood xanuunsanay 40 days and she was circulating in the hospitals marka la ii soo diraayo gas waxa la igu soo diray way matagaysaa inay endoscopy sameeyo preferal waxa ku qoran inay qabto gastritis endoscopy inay sameeyo marka sariirta saaran exam gareynayay waxay iri halkee ku xanuunsataa meesha ku xanuunsa waxay taabatay right iliac fossa waxay iri meelkan amay ku xanuunay meet matagan 40 days waa socda waxay iri qandha ku qabatay waxaan rabaa marka waxaan radiologist u dirsan doo
waa inaan garto. Am I thinking about infectious origin or non-infectious? Because wax kala dhici karo aan infectious ahayn. Hadduu ureteric stone jira ka waran, waxaa lama tagaysaa ay tahay stone ureterka. So hadduu yahay appendicitis, waa inaan historyga ogahay. Fever miyaa jirta? Haddaan fever jirin, WBC-ga leukocytosis jirin, waayo aan u confuse garayna radiologist aniga. oon leeyahay CT scan inside appendix fever. waa inaan horta ogaadaa waa meesha ka bilaabanaysa anaga naga bilaabanay. Gabadhii maxay yiri meeshaan xanuunaysa? qandha ma jirto. CBC-ga aan qaadayna leukocyte was normal. Immediately waxaa maskaxdayda ka baxaya appendix. Dabcan tenderness aa jirta, laakiin rebound tenderness ma jirto. waxay iga sii caawinaya in appendix meesha ka saaro. hase yeeshee differential diagnosis markaan qorayo si aan ana isku ilaaliyo ma dhahay appendix ma qabto, laakiin waxaan ka dhigaa lower in the list. waa inay ka horeeyaan waxyaabo kale oo aniga aan marka hore ka fikirayo. listiga waxaan ku qoray oo ka mid ahay waa gabar yar lamana qabo. so maskaxdayda waa inuu ka bixin ovary. ila ovary ku jira isagana waana gabar. waxaan iri trauma waxyaabo badan oo weydiiyay historyga weight loss jira. aad weightkeeda u lumay, skinkeeda waa iyadoo ku degan yahay. waxa suurtagal cadaadis yar oo fuuray culays ku keenay. waxyaabo maskaxda soo wareegaya organs meesha ku jira waxba ka jira marka. Then list aan qortay, I think appendix was the last differential diagnosis marxaladiga ay jooga. laakiin waxaa number 1 yahay uterine ovarian torsion inuu jiro. waxaa ka mid ah ureteric stone inuu jiro oo possibilities. lower in the list waxay ahaa appendix. Fortunately aadaan ugu farxay. CT scan-ka aan diray waxaa akhriyay Dr. Jama. Dr. Jama wuxuu soo diray case-kan waa ovarian torsion. I was really very happy. waxaa qalay bukaanka videoga mobilka ku jira Dr. Abdulwahab. wuxuu soo diray videoga asagoo ovarian-kii ku sameynaya retorsion. marka waxaan ku keenay example adeeg ka bilaabanay. haddaan adiga marka hore garanay waxaad dirayso, ha filin waxaad garanaysaa lagu soo. That's very good point. markaan dhiganayay jaamacadda qaybta radiology waxay ka mid ahayd koorso aan dhigano. waxaa layla fadhiisinayay radiologist aan radiologist leeyahay. haddana waxaan la fadhiisanayay team radiologist yaala. waxaan ku keenay waxaa lagu geynaa meesha ma aha. waxay dhihi jireen every doctor should know radiology, laakiin radiologist wuxuu ku dheeriyahay experienced ayu hayaan. markuu fiiriyo waxaan arkin arkaa adiga. laakiin adiga wuxuu ku baraa oo lagu baraa see u dirsanay yaa u dirsanay maxaa dirsanay. waa maasan salaamku. aad iyo aad waa mahadsan. Doctor Adiba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي مسيحين دكاترة راديولوجيستيا ما أنتم لو فايدة محلي هذا محاولة أنا هنا درسنا. وحنسلي أنا هي ومركز refreshment يوقف كسب النوك الرجال إن شاء الله. وحربي وحير ويديو دكاترة. وحاول أن كذا شيء modality kala dirsan karo iyo sida ay yihiin iyo waxyaabaha la xiriira. waxaan aragnaa inta badan aniga pediatrician ahay by profession. waxyaabaha commonly aragno waxaa ka mid oo kale mararka qaar aan ku arkin cases kana ka shakino appendicitis ka hadda ka hadlay doctorka. waxaa jirto in mararka qaar inta badan aan clinically inta badan aad ugu sii dirno instead of imaging. waxaana mararka qaar acute appendicitis marka ka shakitay CT ama ultrasound ka dirsan CT inta la gaarin inuusan wax badan ku caawinin. oo maybe I can say it's normal. laakiin marka clinically aragtid bukaanka absolutely inuu yahay vomiting-kii, fever-kii, maxaa la yidhahdaa wax walba waa inuu leeyahay. rebound tenderness-kii dhakhtarku ka sheegay waxaasoo dhan inuu bukaanka wato. marka waxaan rabaa inaan ogaado haddii case aan rabo inaan imaging dirsado ma waxaa marka hore first ku dhiiradaa inaan ultrasound aan dirsado iyo mase CT scan. which one is more sensitive? We know which one is expensive. laakiin inaan gaaro haddii aan rabo
like my diagnosis exact sensitivity. Will you recommend in ultrasound kega isaga ekaado? And then kabacdi haddii ama dhakhtarkaas waxay sheego radiologist gaamiusan sheegin kabacdi bukaankaan operation ku diyaarino waan ano okay go ahead for operation by clinical decision. Masa waxaa kaloo rabaa chest ultrasound. waxyaabaha hadda modalities inta badan soo kordha waxaa kamid ah chest ultrasound. Maybe wax badan inaan anagu aan ku baraarugsanaynin. marka qaar waxaan aragnaa marka chest x-ray oo kaleeto waxa laga yaabaa sometimes quality-giisu inaysan ku caawinin sahan aad baan ugu faraxsanahay inay kusoo biirto wadanka dad professional aan aqaano background-igooda ay joogaan how far anigu dhiiran karnaa bukaanada inaan usoo dirsano chest ultrasound when we went in ogaan haddaan how much fluid baa bukaanka ku jirto inta ml ay leegyihiin waxaasoo dhan inaan ogaan haddaan iyo sensitivity-ga ultrasound-ka just ultrasound-ka inaan fluid-ka ku ogaado haddaan rabo iyo inaan x-ray-ga inaan ku ogaado haddii aan rabo waxaa kaloo hal su-aal ah waxaa maalmaha soo batay khaladaadka dhacaya waa isnaqaanaa physician-ka dhakhaatiirta magaalada ka wada shaqeynaa cid walba waa isognayn waxaa jiro magaalada CT scan fara badan oo unnecessary ah inay la kulmaan dhakhaatiirta waxa ay hadda ka hadlayaan experience-goodan ay tahay ma aqaani waa xanuun haysto waxaan ugu soo batay wax la yidhaahdo in patientska lacag laga sameeyo certain waa sugna waa inaa sabtaan anaga isweydiina sidee looga samaynayaa waxaa laga yaabaa in commission wax la yidhaahdo dhakhaatiirtii inkaar loogu sheegay qof kastoo imagine furta inuu yidhaahdo okay my friend wherever you case-kaaga aan helo you will have something wherever numberka uu leekaa and then every patient oo aad u joogtid mas-uuliyad baa naga saaran oo ogsoontiin oathka markii la marayo inaa ma aqaan dadka qaar inaa oath marin baa laga yaabaa laakiin markii la marayo waa ina bukaanka pocketkiisa ay ka fikirtaa economic haddii ay unnecessary tahay marka waxyaabahaasi waxyaabaha haysto aan isleehay unnecessary cities-ka faraha badan ee la samaynayo recently I shared with the case Dr. Sahal I don't know how feasible I ahead in 3 CT scan abdominal la saaro waxaa la yidhahdaa ay sheegeen in 20 days gudahood 3 CT abdomen oo CT-gina uu ku dhegayaa mid kasta xataa lagama reebanaya CT-gii reportkii waa isku dhegayay and I don't know how far intaas ayada wata markaada maasantiin Dr. Ahmed mumkin jawaabi karta su-aalaha su-aasha aftarsanka raba inaan ku midkareeyo waxaan filaa radiologiga programka 5 sano waaye almost 3 or 2 year and a half aftarsan sameynaayo aftarsanka waa waxa ugu qiimaha badan radiologiga diagnostic tools la isticmaala waana first waxa loo yaqaano imaging modality-ga waxyaabo badan sababta laakiin u keenaysa inuu dhinku kulusuf noqdo ama dhakhaatiirta ay ku kalsoon qabayaan waxaa waaye si dhakhaatiirta ay sheegaan operator dependent waaye oo qofka sameynaya hadduusan ahayn qof oo well trained ah oo ultrasound-ka is black and grey waa waxaana la yaraa marka inaa hematoma miya ama wax kala absimiya inaa kala sarsaar marka dhaqaale ahaan asigaa fudud emergency bukaanka soo yimaado initial anaga waxaa ah in ultrasound loo soo diro haddii bukaanka uusan ahayn neuro hadduu yahay radiology CT scan hore maray laakiin abdominka initial bukaanka waxaa ah in ultrasound la saaro laakiin well trained ay ultrasound oo fiiriyo ultrasound waxaa ugu fiican waxaa bukaanka waa kadgidi kartaa bukaanka sariirta ku saaran yahay laakiin CT-ga hal mar aa saaraysaa bukaanku waa tagaa markaad examination u samayn kartid ultrasound intaad doontaa samaysan kartaa waa radiation ma lahan lacagta ultrasound marka loo fiiriyo CT-ga raqiis waaye mobile waaye bukaanka ICU ugu tagi kartaa ama emergency meesha ugu tagi kartaa haddii markaasi uu dhinku kulusuf noqdo markaasi aad ku caweysid CT waxaa lahaa problem solving tool markaasi waxaa lahaa father imaging modality is recommended markaas marka dhaktarka su-aasha ultrasound-ka haddaa ka jooga waxaa waaye I think for my 5 years radiology experience aan leeyahay or secretary aan ahaa ultrasound is a best imaging modality CT iyo MRI is okay waaye ultrasound way ka fiican yihiin laakiin cost effective ma aha CT radiation uu leeyahay MRI available ma aha mar kasta marka let's focus on ultrasound marka hore aan saarno bukaanka laakiin aan ha sameeyo isbitaalada ay joogtaan qofka ugu fiican ee ultrasound sameeyo ha sameeyo
haddii markaas lagu qanci way noqonaysaa waxyaaba kale marka qaybta city Dr. Jamal just waxaa kaleeyahay su-aasha dr socdaal intaas waa ku filan tahay macnaha ultrasound isaga first image modality markii loo imtixaan appendix laakiin to operator dependent plus marar badan waxaa jira ultrasound centers yaaliya probe la isticmaalayo qoxoonta probe walba asaas dumaanka probe iska ugu badan oo hadda sida meelaha yaalla iskaalada caadiga waa carbelinia ultrasound marka laga hadlayo researchkana waxaa lagu arkaa linear probe ka lagu arkaa marka beside hataa waxaa probe-ka isticmaalaysa ku sii xiran tahay carbelian probe kuma arki kartid appendicitis haddii ultrasound negative kusoo saaro clinical special you can go and do CT pathology meesha kama bixin waxaa su-aasha kaloo ahayd yes there is role for just the ultrasound waxaa hadda faraxsanahay Hamdi oo experience fiican u leh caseska hadda test ultrasound kana noo samaysa test ultrasound wuxuu ka caawin karaa consolidation inaan ku aragto uu ka caawin karaa consolidation si fiican u dhigaya pneumothorax waa lagu ogaan karaa markay tahay say role waliba pneumothorax waxaa lahaa markuu yar yahay waa kaga sensitivesan yahay chest x-ray-ga lagu ogaado laakiin still operator dependent marka hal kaliya waxaan ku daraa doctorinta haddii aad ultrasound especially the pediatric ultrasound send to radiologist don't send to technologist send to radiologist aniga xumaanta kama wadi qofna rootigiisa kama soo jeedi haddii mar caruur tahay oo ultrasound tahay it doesn't matter send to radiologist radiologist-kana wax u sheeg waxaasan kaa rabaa hadda doctoressa dul ayaa su-aal leh السلام عليكم. وما سنتين أنا واحد أنا ما سؤال واحد لأنه حاول كومنتس أما واحد أنا كأني أجرب. فهو رأي وقت حواي ما أنت كم حال مسؤول علينا يمجد حسبنا مرة روح آدم فيها هذا الجزيال بدنا ماذا أو حكي كلام هو يمكن إنه الراديو راديولوجي محل ديبارتمنت كده أرض قبل كده وحبرنا يمكن راديو بصفة على الموضوع oo imagine iyo maxaa sameynaa iyo waxaan ognahay quality ardayda dhaqaatiirta soo baratay marka hore waa og yihiin wixii aan soo marnay had baa laga baxay horta mar walba in la helo in loo dhiso dhaqaatiirta ani waxaan ogahay markaan takhasuska sameynayay burjgumnay maxaa every day inta aan joogay meeshaas subax marka gaaro subax waa la shaqeeyaa kasta waxaan geli jirnay 1 hour oo image wixii image oo isbitaalkaas laga sameeyay ala keena kadibna waxaa soo bandhigayo radiologist dhaqaatiirta midka ugu sareeyo professorka aan waa fadhiya horta anaga aan isbarno inaan wax barano taas midda koowaad waa dhakhtar kasta waxaa laga rabaa inuu barto waxa arkayaa anaga markaa wax baranay CT MRI lagu jiro ultrasound markaas la bilaabay haddaan dhaw meesheedaan jooga meeshaadaan joogay hadda waxaan ognahay MRI iyo kulliga laga tegay kuwa kale kasii dambeeyaa la keen intervention hadda la mara marka mar walba horta aan isbarno inaan barano wixii oo cilmi ahaan aan u fahamno si aan dhakhtarka ula shaqeyn karno because wax la isku baahan yahay waa imagine keligood hadday meesha dhistaan waxay soo saarayaan mal dhakhaatiirta keligood hadday xagga fadhiistaan diyaansi ay gaarayaan mal marka horta marka ugu horeysa collaboration aa loo baahan yahay collaboration-kan wuxuu ku bilaabanaa patient-ka iyo arkaayo dhakhtar marka dhaqaatiirta oo taas baraan hana raacaan wixii nala baray oo ah inaan sameyno history physical examination suspect DIC intaas adoo sameysay u dir can you imagine inay subax kasta waxaan u malaynaa isbitaalka oo maxay tahay ordaga subaxi meeqa qof meeqaas ay boqolaal saaray kumayaalkaas la saaran boqolaalkaas saaray history ma wataan may history la qori lahay dhakhtarka ma shaqeyka waxaan ogahay inaad dirtid hal CT waxaa u baahan tahay history case-kaaga soo bilowday
waxaa daawo siisa waxaa laga samaysa marka aan isbarno markaas kadib waa wax fiican sugeynaa midda kale oo ugu muhiimsan waxaa waaye kadib waxaan ogaan kartaan maxaa u baahan tahay midda kale dhakhtarka uu kaa bedeli karaa midda kale markaa qortid magacaaga ku qor nambarkaagana ku qor dhakhtarkana wac dhakhtarka aad u dirta CT-gana kuu samay ama MRI adi asaga wada xiriira waxaa fududaanaysa in bukaankaas si fiican loogu adeego adigana bukaankaaga oo si fiican kuugu horeyso marka horta anaga aan collaborationkaas ilaalino midda kale oo ugu daran oo aan isleeyahay waxaa waaye wada shaqeyn la'aan sometimes isbitaalkii oo wixii dhan wada yaaliin aan wada shaqeyn lahayn maxaa ka mid ah qofa emergency la keenay kadibna waxaa loo diray maxay ahayd CT in la saaro CT-dii la geeyay dhakhtarkani waa soo saaray midaan arkin hadhow daawo u qor waa wax xamar yaalla waay taas intaan ku jirin wax ma sameyn karto dhakhaatiirta raalli ha ahaadaan ayaga naftirkooda mar qofka ay saarayaan hadduusan lahayn maxay ahayd indicationka saxda ahay inay sas this was the responsibility waay marka lagu soo daro qofkii kuu soo daro ku noqo aawe waxiisa soo raacsin inaad bartid waay dadka Soomaali waxaan dhahaa in la isbaro wixii si aan isku barno dhakhaatiirta aan ka codsanaa inay ayaga naftirkooda abaha qaarkood marka loo soo diro inay ku celiyaan ay dhahaan maxaan sameynaa anaga waxaan dhahaa haddii la qoro MRI case-kan hala soo saaro intee laga saaro xataa meesha laga saarayo CT hala soo saaro marka su'aalahaas waxay u baahan yihiin wax badan oo CME badan in laga qabto dhakhaatiirta ayagu inay isdhisaan anaga dhexdeena inaan isla shaqeyno waxa ugu muhiimsan su'aasha waxaa waaye waxyaabaha qaarkood marmar la soo qoro waxaa kamid ah in case inta u tirsaan la soo saaro in waxaan ku arkay nephrotic syndrome lagu soo arki kara waxyaabaha qaarkood oo la soo qoro magic soo qoraan this was waxyaabaha aan la yaabo oo aan u baahan in la ogaado midda kale marmar qofka kuu keeno waa la yaabay adig marka waxaan ka wadaa marka la qorayo naftirkooda inaad keeska naftiisa ku noqotiin haddii annaga aan soo qaladnay at least adiga bal keeska inta ku noqotiin fiirisiin kadib inaad qortiin waxyaabaha kale oo hadda aad dhif waa waxaa ah CT badan iyo MRI badan la sameeyaa haddana weli waxaa dhif ah maxaa interpretation still not well interpreted because waxaa arkay keeskan waxaa laga soo sheegay iyo keeska meesha uu ka cabanaya xataa badan correlated in the clinical correlation uu sheegayo aan la saxaa marka kuwaasoo kale tusaale wax xalli karaa ma dhici kartaa inaan lagu soo celiyo qofkii inaan isla fiirisiin ma dhici kartaa hal midna ogow sometimes haddausan dhakhtarka oo wax qoraayo waxba soo sameynin radiologist waxba sameyn karo tusaale waxaa ah qof appendicite 30 sano ka hor laga bixiyey waxaa la yidhaha appendicite oo qaba dhakhtarkii qale appendicite oo raadinaya kii CT saaray appendicite aan soo arko yiri waaba la qala qofkan 30 sano ka hor haddii ay past medical history la weydiin lahaa dhici lahaa marka waa mahadsantiin iyo waxaan kaloo loo su'aal ah waxaa lagu celceliyaa halina CT ku celceliskaas meeqaa la ogol yahay in la sameeyo hadda dhakhaatiirta waa fadhiyaan arrintaas nala sheego waxaan u malaynaa shalay meeqeed maahan kalsaala aan soo diray case adiga soo dirin oo 3 CT la saaray within 10 days Dr. aad iyo aad uga mahadsantahay intii waa waqtiga haddana aadaankan dasa waa jawaab saysan u dheeraana kooba dhibka aan ku arko inta waxaa ka mid ah dadan technologies ahayn radiologies ahayn baa ultrasound suubina nephrotox subay waxaan arkay rapport ku qoran cavernosinus thrombosis by ultrasound ani weligay ma maqal cavernosinus thrombosis by ultrasound qofkiina wuu joogaa maanta u leeyahay marka hadda arrintaas Somali Medical Association ka saaran ayay saaran tahay in arrintan wax ka qabtaan way dhibaatada aad sheegtay radiologist maaha Somali Medical Association oo sheegay ayaga u daayay beeshanadana dam dib jiraani garaali hadana intii qabaa beeshanadana hadduu qofka konton sano ka weyn yahay it doesn't matter how many CT why everything already was plus 20 plus 30 so it won't affect like qofka hadduu yar yahay 20 or below and is a female is more high risk markii nagu celiyo ma habboon my last question Dr. Hamda Misai karta Isaac please hadda Uganda ayay ka soo baxday is an excellent ultrasonographer different they do excellent ultrasound there's no discussion about that like hadda Dr. beeshanada aan dikar aad karin haddaad qof rabtaan inaad dhegta ka jiidaan la dagaalantaan oo pediatric ah Dr. Hamda
ayada chest ultrasound ultrasound hadda besa wax kala duwan salaada waa lagu admay Soomaali mid ninka hadalka ugu dambeeya oo dhiba ayada hadana Tuan Ferreira, mahad celinayna tiimka oo dhaqaatiirteeda radiologistayaasha ah barnaamijka fiican maanta noo soo diyaariyeen waxaan dareemaynaa in dalku muxuu ahaay usoo badanaya dadka education kale aqoonta leh mar walbo knowledge ku fiicnaadana waxaa fiicnaanaya in la isticmaalo waxaan rabaa kumankan ku daroo ah misappropriate use of radiologist ama imaging waxyaabaha anaga gelinayo oo tiimka radiologistayaashana ay dhinaca kala yihiin waxaa ugu horeyso in ay muxuu ahaa dadku la sameeyo qofka dhakhtarka ah dad badan aan discussionka galayay in la riwaayo qofka hadduu qof soo diro oo kale commissions iyo waxyaabaha waxaa u malaynaa as a business wise technicalna isax ay ahayn caafimaad ahaan dhiirigelinaya in qof walba qofkii u imaado oo u diro imaging aan sax ahayn oo iska muxuu ahaa maybe commissionka ku badso waxaa suurtagal ah inay dhibaatadaas keenayso marka waxaa rabnaa in dadka dhaqaatiirta cusub iyo kambaniyada cusub ee imaging studieska keenay dalka in bal ay waxyaabahaas ka fikiraan qofkii waa la samayn karaa waa la yeeli karaa laakiin waxaan isleeyahay waxay sii badinaysaa in wax badan oo kalada la sameeyo qofku u taxadiro uu fiiriyo uusan walahayn muxuu ahaa ama dadnimo aysan celineyn ama wax kale aysan celineyn inta kale aysan celineyn si gaar ah waxaan celinaa tiimka dhaqaatiirta radiologistayaasha ah ee stationka muxuu ahaa iyo tiimka sidoo kale sahan diagnostic center oo dhaqaatiir Soomaali ah colleagues ah sameeyay muxuu ahaa inay keeneen qalab looga maarmi karo wax walba diagnostic images ah oo leeyahay weliba qualified ah conceptooda la haysto muxuu ahaa mar walba aad u baahan tahay clinical by phone inta ku aadda la heli kartid waqtiga aad gelin kartid aan rabaa inaan muxuu ahaa nala hadlo oo aan si gaar ah ugu mahadceliyo ay kasii fakeraan ayagana waxyaabahan ay ugu badiyaan si miiska si gaar ah jaamacadaha ay tagaan dhaqaatiirtu intii mediciinka baranayaan waxyaabaha radiologista laga dhiso iyo markii ay marayaan flagships